السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب قيمة قاية بدن waxaan soo gaarnay casharkeena shanaad qaybtiisa lixaad waan uga hadlaynay signale dare precedenza barashada batantibiga horey waxaan u soo sameynay argumentaha koowaad labaad saddexaad iyo afraad dhammaan qaybahooda faahfaahinta iyo qaybahooda quiz waxaan ku fasiri doonaa af Soomaali waxaan filayaa wax badan ka faa'iidi doontiin asxaabta kale oo share gareeya YouTube-ka dhalinyarta ku xiran already comment iyo like ha ka soo muuqdaan aad iyo aad wada mahadsantihiin aan bilaabana casharkeen muxuu yiri mar il segnale raffigurato un segnale di preavviso di fermarsi e dare precedenza o dai vero è sababtoo ah il segnale raffigurato signalka un segnale di preavviso waa signal u dhahay oo digniin siinaya di fermarsi inaan istaagno oo noogu digay e dare precedenza kadibna inaan mudnaanta siino vero ay barka 320 mitir kadib waxaan la kulmaynaa segnale di stop segnale di stop markaan aragnana maxaa khasab nagu ah inaan istaagno gawaarida kale aan ka istaagno oo mudnaanta siino vero ay il segnale raffigurato obbliga a fermarsi in corrispondenza delle strisce trasversali di arresto e dare la precedenza agli altri veicoli vero ay sababtoo ah wuxuu yiri il segnale raffigurato signalkan obbliga wuxuu waajib nooga dhigayaa fermarsi inaan istaagno in corrispondenza meesha ay ku taala delle strisce calaamada trasversale di arresto oo la istaagaya calaamada trasversale di arresto waxaa la tusaale ahaan oo kale meeshan oo lambar 2 ku qoran tahay wada laami waay calaamadan yar oo madow wixii ka dambeeyo laami kala soo galay oo macnaha isgoos waay marka trasversale di arresto meesha samafarku ku yaal meelahaas calaamada ku taalo oo gaariga meesha uu istaagayo kale trasversale di arresto taas alla vero waay in presenza del segnale raffigurato e del semaforo 3 luci abbiamo la precedenza se il semaforo è luce verde wuxuu yiri in presenza del segnale raffigurato signalkan e del semaforo 3 luci markuu uu yahay ama la socdo semaforo saddex nala jaalle iyo cagaar iyo guduud laga hadlaa mogtahay abbiamo la precedenza mudnaanta anaga iska leh gawaarida kale anaga ka hormarayno waa se il semaforo è luce verde haddii semaforku uu yahay verde ama cagaar vero waa barkii cagaar hadduu yahay adaa gudbaayo hadduu jaalle yahay waad istaagaysaa sababtoo ah wadadaadu way xiran tahay hadduu guduud yahayna waa ka xiran yahay wadadu way ka xiran tahay waa istaagaysaa quindi haddii verde yahay laakiin anaga soconayn vero waa saxaabay il segnale raffigurato preannuncia l'obbligo di fermarsi e dare la precedenza nei sensi unici alternati wuxuu yiri il segnale raffigurato signalka preannuncia wuxuu noo sheegay l'obbligo di fermarsi inay qasab nagu tahay inaan istaagno okay intaan way saxan tahay e dare la precedenza mudnaantana inaan siino intaas oo dhan waa sax laakiin nei sensi unici alternati waa falso waa sensi unici alternati calaamada kale waa kana sensi unici alternati la okay kana segnale di stop waay marka senza unici alternati falso waay il segnale raffigurato impone l'uso della massima prudenza al fine di evitare incidenti vero waay sababtoo wuxuu yiri il segnale raffigurato signalkan impone wuxuu qasab nooga dhigayaa l'uso della massima prudenza taxadirka ama deganaanta ugu badan inaan isticmaalno al fine ugu dambeyn di evitare si aan uga fogaano incidenti inuu shil dhaco vero waa asxaabta qiimaha badan okay il segnale raffigurato preannuncia di arrestarsi al prossimo incrocio e dare la precedenza a destra a sinistra vero waa maxaa yeelay il segnale raffigurato signalkan preannuncia wuxuu noo sheegayaa di arrestarsi inaan istaagno al prossimo incrocio isgooska markaan gaarno ilaan isgooska 320 mitir aan uga dhiman mogtahay e dare la precedenza sidoo kale waa inaan mudnaanta siinaa gawaarida kale aan ka istaagnaa gawaarida kale marka aan gaarno isgooska destra kuwa midig ka imaanaya iyo da sinistra kuwa bidix ka imaanaya labadaba waa inaan mudnaanta siinaa udhahay vero ay barka segnale di stop labada dhinac waa inaan siisaa il segnale raffigurato prescrive di usare prudenza perché ci si sta avvicinando ad un incrocio wuxuu yiri il segnale raffigurato signalkan prescrive wuxuu qasab nooga dhigaya ama noo sheegaya di usare prudenza inaa foojignaan ama deganaan isticmaalno perché sababtoo ah udhahay ci sta avvicinando waxaan ku soo dhawaanaynaa ama hoosta ka soo galaynaa
hadduu incrocio isgoos berkeed anaga signalkan markaan haysano 150 mitir kadib waxaan la kulmaynaa isgoos wado yaro wadada aan saarnaa kusoo dhacayso maadaama wadadeena kusoo dhacayso gawaari ay kasoo baxayaan anaga taxadar waa inaan sameynaa gawaari iska soo galaya jira ayagoo fiirin marka ci sta avvicinando un incrocio vero Il segnale raffigurato si trova su strada a senso unico di circolazione. Wuxuu yiri signalkan wuxuu ku yaalaa wado senso unico di circolazione, no? Doppio senso allaha, ok? Il segnale raffigurato può essere ripetuto formata piccola prima e dopo ogni incrocio, è vero, è sababtoo il signalkan aslan waa segnale diritto di precedenza. Wadada aan saaranahay signalkan markaa la kulanno aan ku aragno gawaarida kale oo laamiyada yaryar ama luuqyada ka soo galay wadada aan saarnaa mudnaanta anaga kale waa in ay naga istaagaan mujeedin falaartan yar waxaas ya marka diritto di precedenza allaha può essere wuxuu ahaan karaa ripetuta in formata piccola calaamad yar inay la socto dopo ogni incrocio isgoos walba macnaha haddii markaas signalka markaa aragto kadib wadada meelay waxaa ku dhamaanaysa macnaha meelay ku dhamaanaysa wadadaas oo lahaanshahaaga meel uu ku dhamaanaya jirmoogta meesha ay ku dhamaanayso waxaa ku yaala signalkan oo calaamad madow saan u dhaxmarayso inta laga gaarayo waa in ay la socotaa ama uu la socda cartellero falara vero Il segnale raffigurato preannuncia l'incrocio con una strada senza diritto di precedenza. Wuxuu yiri il segnale raffigurato signalkan preannuncia wuxuu noo sheegay l'incrocio isgoos con una strada oo kusoo dhacaya wado senza diritto di precedenza oo aan mudnaanta lahayn vero perché wadooyinkan yaryar oo kusoo dhacaya wadada aan saaranahay labada dhinac ugu soo dhacaya anaga mudnaanta kale, okay? Vero Il segnale raffigurato è un segnale di prescrizione. Signalkan waa signal prescrizione u dhahay. Vero o falso? Signal prescrizione ma perché senso unici alternati alla secondo me. Il segnale raffigurato preannuncia la presenza di una barriera doganale. Signalkan waxaa waa yiri una barriera doganale. Barriera waxaa la bahalka oo meesha tareenka goynaya maaragtay biraha lagu dabool oo xirayo wadada barriera la falso Il segnale raffigurato è un segnale di precedenza. Signalkan waa signal noo sheegaya kala mudnaanta iyo kala horumarinta gawaarida sababtoo ah signalkan markaan aragno kaliya waxaan mudnaanta siinaynaa amaan ka istaagaynaa gawaarida ka imaanaysa dhanka midig kuwa bidix ayagaa naga istaagaya marka un segnale di precedenza vero waaye Il segnale raffigurato preannuncia sulla destra una strada senza uscita, no? Falso perché wuxuu dhahay il segnale raffigurato signalkan preannuncia wuxuu noo sheegaya sulla destra dhanka midig una strada wado senza uscita aan laga soo bixi karin inay ku taalo falso wadadan waa la gali karaa waan laga soo bixi karaa Il segnale raffigurato può trovarsi sull'autostrada. Signalkan wuxuu ku yaali karaa autostrada u dhahay ama uu ku dhaganaan karaa vero perché wadadan yareysta corsia di accelerazione alla highway kusoo ridaa gawaarida marka autostrada può essere vero ok Il segnale raffigurato vieta la svolta a destra. Signalkan wuxuu ka mamnuucayaa u dhahay inay dadka dhanka midig u leexdaan falsissimo perché waa loo leexan karaa Il segnale raffigurato preannuncia una confluenza sul lato sinistro della carreggiata, vero confluenza iyo corsia di accelerazione waxaas dhan waa isku wada mid Il segnale raffigurato preannuncia la fine dell'obbligo di precedentemente imposto, non la fine dell'obbligo precedentemente imposto, ma la fine del diritto di precedenza alla saxaab qiimaha badan, ok? Il segnale raffigurato obbliga a dare la precedenza negli incroci ai veicoli provenienti sia da destra che da sinistra. No, una cazzata perché meeshaan wado oo isgoos oo baabuur bidix iyo midig ka imaanayaan maaha waa wado yar oo ciriiri oo marka hore laba koorse ahayd
laakiin doppio senso isku bedelaysa hal koorsa keli oo ciriiriya. Marka sia da destra che da sinistra falsissimo. Il segnale ravvigurato perde la sua efficacia in presenza di agente che regola il traffico, vero? Perché wuxuu yiri il segnale ravvigurato signalkan perde wuxuu luminayaa la sua efficacia awoodiisa waxqabad in presenza haddii uu jiro di agente qof traffica que regola kaasoo kala hagaya il traffico isu socodka gawaarida. Tusaale ahaan oo kale wadooyinka markuu shil ka dhaco kale qof traffica imaanaya booliis oo bahal yar oo calaamad guduudna gacanta ku haysto mar gawaaridan uu joojiya gacanta uu taagaa marna gawaaridaas kale uu joojiya sooma. Marka maadaama qofka booliiska wax kala hagaya signalkan laguma dhaqmaayo qofka markaas booliiska oo trafficada hormar dhaha oo hormaraya. Okay, vero. Il segnale ravvigurato è un segnale di pericolo. Signalkan waa signal pericolo da falso perché è un segnale di precedenza, ok? Mudnaanta gawaarida kala hormaridooda. Il segnale ravvigurato preannuncia un incrocio in cui sia la precedenza sui veicoli provenienti da sinistra. Il segnale ravvigurato signalkan preannuncia wuxuu noo sheegaya un incrocio scots in cui kaasoo sia aan ka leenahay la precedenza mudnaanta sui veicoli gawaarida provenienti ka imaanaya da sinistra. Sia waa sax berke gawaarida dhanka bidix ka imaanaya anagaa mudnaanta kale. In presenza del segnale ravvigurato è obbligatorio fermarsi al prossimo incrocio. Wuxuu yiri in presenza del segnale ravvigurato wadada aan saarnaa markaan signalkan ku aragno è obbligatorio waxaa waajib nagu ama qasab nagu fermarsi inaan istaago al prossimo incrocio isgooska marka aan gaarno 320 mitir uu noo jira mogtahay marka aan gaarno waa inaan istaagno dha falso waa sababtoo ma ahan un segnale di stop ma ahan. Il segnale ravvigurato è un segnale di precedenza. Signalkan waa signal precedence u dhahay vero waa sababtoo ah sida caadiga segnale di pericolo camal anagu noo ahaanaya 150 mitir kadib wuxuu noo sheegayaa khatar inay meeshaas ka jirto laakiin finally wuxuu ka mid yahay segnale di precedenza. Okay, il segnale ravvigurato è un segnale di precedenza. Signalkan waa signal precedence u dhahay vero labaduba waa isku wada mid falaarta unbaa la bedelay ma ahane marna bidixu naga sii marna midig vero waa labadan saal waa isku mid. Il segnale ravvigurato preannuncia un confluenza da destra che da sinistra. No, non è un confluenza ma una strada minore importanza allaha. Non è un confluenza, ok? Il segnale ravvigurato consente la svolta a destra al prossimo incrocio. Signalkan meesha ku sawiran consente wuxuu noo ogolaanayaa u dhahay markaan aragno in aan samayn karno wuxuu noo cadeynayaa inaan ku dhaqmi karno ama inaan samayn karno la svolta leexasho a destra dhanka midig al prossimo incrocio isgooska markaan gaarno. Falso waa corsia di accelerazione weligeeda laguma leexan karo keliya corsia di decelerazione laga bixi karo. Okay, il segnale ravvigurato all'incrocio no? All'incrocio ci dà la precedenza sui veicoli provenienti sia da destra che da sinistra. Il segnale ravvigurato signalkan u dhahay all'incrocio isgooska markaan gaarno ci dà waxayna siinayaan la precedenza mudnaanta sui veicoli gawaarida provenienti ka imaanaya sia da destra dhanka midig che da sinistra iyo dhanka bidixba vero waa ci dà wayna siinayaan. Mi dai ti do ci danno camal waa wayna siinayaan vero waa mudnaanta no. Il segnale ravvigurato indica la distanza dell'incrocio in cui dovremmo obbligatoriamente fermarci. Falsissimo è sababtoo il segnale ravvigurato u dhahay indica wuxuu noo sheegayaa la distanza dell'incrocio isgooska inta uu noo jiro u dhahay. Okay, intaan waa sax. In cui kaasoo wuxuu dhahay dovremmo nalaga rabo u dhahay obbligatoriamente si qasaba fermarci inaan istaagno no perché segnale di stop maaha inaan istaagno qasab naguma. Il segnale ravvigurato impone di arrestarsi e dare la precedenza prima di imbagnare l'incrocio, vero? Perché il segnale ravvigurato signalkan impone wuxuu qasab nooga dhigaa di arrestarsi inaan istaagno e dare la precedenza mudnaanta inaan siino prima di imbagnare inta aanan galin l'incrocio isgoosku dhahay vero? Perché wadada aad saaran tahay signalkan markuu kaa hor imaado wado kalena hormarayso
waa inaa istaagtaa gaariga tusaale ahaan oo kale meeshan calaamadan cad iyo qoraalka meesha ku qoran laami waay adiga laamigana ku imaade meeshan signalkana ku dhegan signalkaaga marka aragto waa istaagaysaa haddii gaari dhankan uu ka imaanayo waa inuu gudbaa intaad uu ka imaanayo waa inuu gudbaa marka adiga waa kusoo dhawaanaysaa kadib laamiga ku dhexaysaa beer waa casharkeena saas ayaan ku dhamaynay waxaan filayaa inaa wax badan ka faa'iideen insha Allah hadda waxaan fiirinaynaa natiijada asxaab qiimaha badan hal su'aal aan qaladnay su'aashaas fiirinaynaa midda ay tahay okay su'aashaan fiirinaynaa midda ay tahay su'aasha 11aad el señale procurato un señale di prescrizione vera ahead ani false aan ka dhigay waaw inta kale waan wada saxnay waxaan noo balnaa casharkeena xiga assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu